الحمد لله رب العالمين. halkan maanta aan joogaa waa degmada Caynaba hudheelka isha Caynaba aan joogaa ajiray shir ka qabsoomay hudheelka la yiraahdo Guuleed baa shir ka qabsoomay shirka Maxamed Kaahin baa ka soo qayb galay waxa uu yiri xisbigi baa la wareejinayaa maanta iyadoo ay sanad wax ka yar ka hadhay xilligii doorashada hadalla badan oo kalena waa soo jeediyay waxaan leeyahay dalkan muddo dheer ayaa horta xisbiga kulmiye soo maamulayay muuse iyo maxamed Kaahin anigu laba nin uma kala aqaano mid baan u aqaana waa isku fikir waa isku dabeecad waa isku dhaqan no difference waxa la wax difference oo dhaxeeya ma jiro in maanta dadka lagu sabaaleeyo Maxamed Kaahin baa xisbi lagu wareejinayaa ama cid kale xisbi waxa lagu wareejinayaa qof ka soo jeeda bariga burco xilligan waxay ila tahay in ay tahay hogwaa muddo dheer ayay nala hortaagnaayeen mujaahidiin baanu nahay bari baanu dagaalanay way soo dagaalameen laakiin se waxa weeyaan dalkani maanta dagaal kuma jiro 170,000 oo dhalinyaro oo jaamacadaha ka baxay ayaa maanta u baahan shaqooyin loo abuuro oo la jiheeyo dalkani maanta horumar iyo caafimaad buu u baahan yahay shacabka Soomaaliland wuxuu u baahan yahay in la jiheeyo wuxuu u baahan yahay horumar iyo caafimaad nooma kala duwana waxa la waxay ku kala duwan yihiin ma jirto labadaas waxa Maxamed Kaahin soo biirinayo muuse ku biirin lahaa maanta laba kursi oo isxiga bay fadhiyaan waana laba nin oo la isku yaqaano waxaan leeyahay maanta uma baahna beeshan bariga burco iyo uma baahna xisbi baan maanta wareejinayaa 4 sanadood ayuu kursiga fadhiyay muuse 4 sanadood ee uu muuse fadhiyay iyo xisbiga kulmiye waxa lagala kulmay wax aan idin qaadan karayn waxaan dib loo dhigi karayn waxaan dib u hagaajin karayn ayaa lagala kulma maanta waxaan leeyahay waqti waa gabagabo waxa la joogaa waqtigii dadku ay isbedel heli lahaayeen baa la joogaa maanta dalku maanta isbedel buu baahay waxa la wax kale ummadda soo celinaya ma jiro muuse la bedelo meesha laga kaxeeyo mooyaan iyo xukuumaddiisa fadhiidka ah iyo wasiiradiisa bila saameynta ah iyadoo la bedelo mooyaane dalka maanta wax allaale wax kale u yaala dadka ma jiraan waa in ummaddu maanta ay tashataa 180,000 ee jaamacadaha ka baxay ee maanta burco iyo Hargeysa jooga iyo dhammaan dhalinyarada iskuulada dhiganaysa mustaqbalka u baahan waxaan ugu baaqaynaa maaha maanta maalintii la idinku maaweelin lahaa waxaan jirin ama odayaal la idinku shirin lahaa marba hudheel 40 jiro iyo 30 jiro maraysaan mustaqbalkiina idinka ka tashan kara maalin walba intii odayaal ku qabtaan hudheel la soo ururiyay oo casho loo qaaday inta hudheel lagu soo ururiyo inay mustaqbalkiina iyagu jiheeyaan oo idinku yiraahdaan saas la yeelaya waa hadii aad tihiin wax aan jirin hadaatin weey dalku dib buu haray xukuumaddiisa ilaayo wixii ka dambeeyay dalku reefs buu ku soconayay waxa dhacday halkan waxa loo ballan qaaday ceelbiyood in laga sameeyo Caynaba 4 sanadood ka hor meey ceelkii la yiri waa la idin qodaya Caynaba meeday degmadii lagu yiri waa la idin siinaya ma xisbiga kulmiye siiyay mise xisbiga wadani baa siiyay maaha in ummadda been loogu sheekeeyo wax qabadka xisbiga wadani waxa uu horeeya oo aad ogtihiin degmada maanta Caynaba ee ballanqaadkii uu u qaaday uu fuliyay sidaas mar walbana u fulin doona wax qabadkiisa iyo ballanqaadadiisa in badan baa sabaale iyo dhalanteed iyo waxaan jirin la idinku sheekeynay waxaan anigu la hadlayaa dhalinyarada Soomaaliland iyo aqoonyahanka jaamacadaha ka baxay baan la hadlay waxaan leeyahay war moodayaal koofiyad baclaa hudheel la galiyay baa maalin walba masiirkiina iyo mustaqbalkiina goynaya hebel baa lagu wareejinaya haddaynu reer hebel nahay reer hebel baynu ma waxaasaa mustaqbalkiina meydaan mustaqbalkiina idinku aydan jahayn karayn oo aydan mustaqbalkiina jeexan karayn degmadan Caynaba muddo dheer xisbiga kulmiye
wuxuu ku odhan jiray mar kastoo uu ololaha doonayo ama mar kastoo uu ololo u socdo degmada Caynaba waxaanu ballan qaadaynaa inaanu bii ka dhigno maxaa maanta loo sheegayaa talo waxaan leeyahay Caynaba waxaa biidii muddada dheer ay doonaysay ka dhigay darajadeeda in kor loo qaado waxaa maanta ku guulaystay isagoo aan kursi fadhiin xisbiga wadani baa ku guulaystay waxa tusaale idinku filan markii madaxweynaha laga codsaday in uu degmada Caynaba darajadeeda kor u qaado oo bii ka dhigo waraaq buu u qoray isagoo oo iska diidaya in uu ku dhaahdo ma siinayo baarlamankii hore 54 xubnood buu ku lahaa xisbiga kulmiye haddii uu daacad yahay uu ka hawlgeli lahaa kama hawlgelin way diideen madaxweynuhu